maalin wanaagsan daawadayaal halkani waa TV-ga dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay warka kooban qodobada ku jira waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika ayaa halkaasi waxa uu kulamo kula qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan Addis Ababa ayaa shir gaar ah waxa uu la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Antonio Guterres waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. kulanka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad danjiraha Soomaaliya oo jooga qaramada midoobay Mudane Abuukar Daahir Cusmaan Baale danjiraha Soomaaliya ee Itoobiya iyo Midowga Afrika Mudane Cali Shariif Axmed iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya. magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ka furmaya shir madaxeedka Midowga Afrika sanadkan waxaa lagu lafagurayaa sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada qaxootiga iyo barakacayaasha qaaradda Afrika iyo sidii gacan looga geysan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka nololeed ee ku xeeran dadkaasi. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada London ee wadanka Ingiriiska ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi kadib markii uu soo dhamaaday shirkii looga hadlayay arrimaha batroolka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuled Qadar oo ku sugan dalka Ingiriiska ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kadib munaasabad weyn oo ka dhacday Ingiriiska. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool London waxa uu uga warbixiyay waxqabadka dawladda muddadii 2 sano ahayd ay jirtay waxa uuna ku booriyay in ay dawladda kala shaqeeyaan horumarinta iyo sidii loo soo celin lahaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Mudane Mahdi Maxamed Guuled Qadar ayaa intuu ku sugnaa Ingiriiska waxa uu kulamo looga hadlayo adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee labada dawladood waxa uu la qaatay hoggaanka boqortooyada Ingiriiska. shirweynaha 33aad ee Midowga Afrika ayaa waxa uu 10 bisha ilaa iyo 11 ka socon doona magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida lagu sheegay qoraal laga soo saaray shirkaasi. ajandaha ugu weyn ee madaxdu ay ka wada hadli doonaan ayaa la sheegay in uu halkudhig sanadkan looga dhigay qaxootiga dadka ka soo laabanaya iyo dadka barakacayaasha ah iyo sidii xal waara oo xoogan loogu heli lahaa dadka lagu qasbayo in ay barakiciyaan gudaha qaaradda Afrika. ajandaha ugu weyn ee madaxdu ay ka wada hadli doonaan ayaa la sheegay in uu sanadkan halkudhig looga dhigay qaxootiga iyo dadka ka soo laabanaya iyo dadka barakacayaasha ah iyo sidii xal waara loogu heli lahaa dadka lagu qasbayo barakicinta gudaha qaaradda Afrika. shirweynaha 32aad ee madaxda Midowga Afrika ayaa socon doona 10 ilaa iyo 11 sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray xogayaha shirkaasi. dawladaha Afrika ayaa halgan adag waxa ay ugu jiraan sidii ay u hakin lahaayeen kororka qaxootiga iyo barakacayaasha ka soo cararaya colaadaha ka aloosan dalal kamid ah qaaradda Afrika. wadamada ay barakacayaasha iyo qaxootiga culayska ku hayaan waxaa kamid ah dalalka Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Afrikada Dhexe, Koongada Dimuqraadiga ah, Burundi, Eritrea iyo wadanka Mali. warkii koobnaa oo daawadayaal idinkaga imaanaya dalsan Muqdisho anaga intaanigoo Firdawso Sahal ayaa wararka soo koobayay iyaga oo faahfaahsan waxaad daawan doontaan saacadu marka ay soo gaarto 4 galabnimo inta ka horeysana waqti wanaagsan.